si loo ogaado ardayda fasalka ku jirta midda ah gabadha Eoga, macallimadu waxay ardayda ku amartay inay sawiraan gaadiidka qoysaskooda. Waxay u malaysay in gaariga qoyska Eoga uu yahay kan ugu qaalisan. Ku sali nabiga magacaan hadduu kugu weyn yahay alla dartii isu follow garee lof nasaar mahadsanid. Markii hooyadu ogaatay shaqada guriga ee gabadheeda, waxay ku amartay adeegaha butlerka inuu isu keeno dhammaan baabuurta raaxada leh si gabadheedu u sawirto diyaarad helikobtar ah lagu soo duuliyo. Si kastaba ha ahaatee, gabadhu waxay sii eegaysay baaskiil meel fog yaalay. Maalintii xigtay, macallimadu waxay aragtay sawir Ferrari ah. Waxay u malaysay in ardayga sawiray uu yahay gabadha Eoga. Markii ay aragtay ardaygan oo xiran dhar magacyo caan ah leh, waxay sii hubsatay fikirkeeda. Ma aha oo kaliya inay ammaantay sawirka gabadha oo ay tiri waa kan ugu fiican fasalka, balse sidoo kale waxay u ogolaatay inay safka hore fariisato. laakiin ma aysan ogeyn in gabadhan qoyskeedu uusan lahayn wax baabuur raaxo leh. Isla waqtigaas, sawirkii gabadha Eoga ayaa dhulka ku dhacay. Markii ay rabtay inay soo qaado, gabadhii is-ekaysiisay imposterka ayaa si kama ah u tuurtay koobkeedii. Biyihii oo dhan ayaa ku daatay sawirka. Imposterku xitaa waxay ku eedeysay gabadha inay iyada riixday. Waqtigaas macallimadu sidoo kale way timid. Markii macallimadu aragtay in sawirka ku jiray baaskiil, waxay sawirka ku jeexjeexday hortooda dhammaan ardayda. Markii fasalku dhammaaday, Edina ma rabin inay la ciyaarto gabadha. Isla markaas kaar wax iibsi oo qiimihiisu yahay 100,000 oo dollarka Mareykanka ah ayaa ka dhacay iyada. Imposterku waxay u malaysay inuu macallimada ka dhacay. Markaas ayay qaaday oo siisay macallimada. Macallimadu waxay u malaysay inuu yahay hadiyad ka timid Eoga. Taas ayaa ka dhigtay inay sii jeclaato imposterka.